waxa inta gormay ugu dambeysay لو بيري لا برحمة عون لا وحبنا ندم الشيرنا دم الشيرنا gaajo daran ayay dareemayaan sababtoo ah hooyadood oo waxay cunaan u keeni jirtay baryahan ma shaqo tegin xanuun awgii carruurtan oo laba ka mida lugaha naafo ka yihiin midna indhaha la adahay oo ay weheliso hooyadood waxa u bilaabatay nolol guri la'aana kadib markii laga saaray guri ay dulsaar ku ahaayeen qoys kale waa agoon ay booskii aabonnimo u buuxisay hooyo mako meel kuma oga aqal ay cadceedda iyo dhaxanta kaga hoydaan waxayna deegaamaysteen geedkan harkiisa oo ay gogosha dhigteen guri la'aan guri ma haystaan raashinna ma haystaan aabbana ma haystaan anigaa u xamaalinayay anigii labadaa bir waa xanuunsaday iska xamaasahay waa xanuunsaday laba habeen haataa raashin ma siisanay waa qadeen hooyo mako iyo carruurteedu halkan ayay u hoyan doonaan caawa haddii aysan gargaar helin baahiyaha gaarka ee ay la nool yihiin saddexda carruurta ee hooyo mako ay dhashay waxaa u gaar ah in ay la soo diristay macluul iyo gaajo baahsan tan iyo markii ay howlgab noqotay islamarkaana ay u suurageli weysay in ay shaqayso gabadhan iyo wiilkan oo saddexdood kala weyn ayaa ku dhashay cagaqalooca mana awoodaan inay si sahla ku gaaraan halka ay doonayaan waa xanuun ay ku dhashteen luga iyo koosaas ee xanuunkooda lagu dhalay gabadha iyo wiilka ay koo xanuunsana la dhalay isbitaal ay noo baahan yihiin isbitaalna waa geey waay waxaan ku geeyaa buu waayay gabadha indhoolada ee iyadoo indheed jaw ee la dhalay waa xanuunsatay jaleecaa ku dhacday waa la kiciyey saasay indhaha u beeshay isbitaal ay u baahneed isbitaalna wax ku geeyaa waayay rajadooda ugu weyn ayaa ah inay helaan dhaqaale ay ku tagaan dhakhtar la tacaala cudurrada indhaha iyo lugaha ka galay carruurtan inaan dhakhtar la geeyo aba hooyadin lacag ma haysato dhakhtar u baahan tahay nolosheen deriskale ku dhaqmayne ya deriskale ku dhaqmayne inta ku tirsantii xoogaa lacaga oo hooyo mako ka soo geli jiray dhardhaqista ayaa lagu maareyn jiray nolosha qoyskan balse xanuun dhabarka ka haleelay ayaa u diiday inay shaqo tagto waana tan keentay in carruurtu ay cunto weydo xamaala iska ahay dambiila iska qaadahay bakaara iska xamaalsahay had xanuunkii waa ii soo naqay waa baxay guriyaan iska yaa dhara dhaqa jiri xamaala iska baxay dadka oo xaafadaan dhara iska dhaqay had xanuunku waa ireeb guryaha baliireeb bir aan ku baxay laba habeen raashin u karin caqabado kale culus ayay muqdisho ku wajaheen qoyskan kadib markii ay ka soo barakaceen qoryooley xaaladda ayaase ku sii murugtay markii laga saaray gurigii carruurta gabaadka u ahaa mana haystaan deris iyo walaalo dejiyo guri ay ku noolaadaan maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho.